السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلك أنا قد داونيسان وا جانا جلافور اوفيشال هدان ugu cusubtahay subscribe like share comment inta waa xaqiini walaalayaal ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa meeshan doonayna na gaarsiin karo balse laakiin walaalaheena Soomaaliyeed ilaahay ka soo weyna gaarsiin karaan waayo subscribe yara taawato adna wax ma ka dhibayso anna dhiirigelin ayay tahay hadaba walaalayaal waan idin bariyayna subscribe ka naga iloobina like ta iyo share ta iyo comment ka inta waa xaqiini waayo dadka walaalooda ayaga meel gaarsiin kara ayagana taqana meel saran gaarsiin kara meel hoosna dhigi karo kadib waxaan idin ka codsanaynaa walaalayaal subscribe ka iyo like ta iyo share ta inaad noogu dadaashaan kadib wadankeena Soomaaliya wuxuu ku jiraa marxalad kala guur marxaladaas oo ah in goordhow la filayo doorasho ay dhacdo doorashadaasna ninka ilaahay carafkiisa ugu daro baan noqonaa hal kursi 27 musharax ku fariisan karaan hal qof baa ku fariisanayo awalan horta ilaahay waxaan ka baryaynaa nin dalka iyo dadka iyo diinta anfacay inuu ilaahay ee xaqan yaqaan inuu ilaahay ku guuleysiyo ani ma dhahayo hebelan taageera ma dhahayo waayo Soomaaliya waan wada naqaana waan ka dhalanay Soomaali baan nahay laakiin maanta qof dan Soomaaliyeed inta qof ordayso maanta qof dan Soomaaliyeed u socdo ee raba inuu wadankan samata bixiyo kuma jiro kulli waa danaystayaal runta markaan isu sheegno doorashada madaxweyne waxay noqotay ganacsi naqatay shilin ha ku kor camal way intaasoo kuno dollar ay wataan dadkii ku gadanayaan dadkii waxye marka ilaahay subhanahu wa ta'ala umba og xaq meeshuu jiro waayo qofka bini aadamka waxa laga rabaa markaad xil u dhaaranaysid ee kitaabka gacanta u gashanaysid waxa laga doonayaa xilkaas sidaad ugu dhaaratay inaad uga soo baxdo waayo kitaabka jaamacada looguma dhaarto inay dhaartaan ee haddana waxay doonaan ay ka sameeyaan marka waxaan ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu baryeynaa inta ordeyso oo xusul duubka ugu jirto in ay wadanka tala ka qabtaan awalan horta ilaahay ka cabsada hawaatan 7 musharax waxaan ilaahay ugu baryeynaa wadanka Soomaaliya dad miskiin ah 30 sano dhibaato ugu jiray dagaalo qaxar dhib ayaa ku nool ilaahayna waxaan ugu baryeynaa qof samata bixiyo inuu la hogaamiyo kadib haddaan halka kaga gudbo caawa maxaa miiska inoo saaran 4 musharax marka waxaan arkaynaa musharax walba shacbiyada uu wadanka dadka uu ku leeyahay oo bulshada dhexdooda kaga leeyahay iyo shacbiyad la'aanta uu leeyahay inaan ogaano marka musharaxiintu way badan yihiin mar walba qayb ayaan ka soo qaadanaynaa musharaxa ugu horeeyo 4 musharax aan soo qaatay waxa kamid ah madaxweynaha hadda talada haya Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaarihi hore Xasan Cali Khayre madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur afarta qofood inta wadanka shacabka Soomaaliyeed dhexdooda shacbiyada ay ku leeyihiin inaan ogaado ayaan u soo fariistay commentiga intaasi commentiga noogu soo reeba cid alla cid taageer badan arkayna cid taageeraysid commentiga noogu soo qor annagoo hadhowna soo gudbin doona qof walba qofka uu taageeray iyo inta shacbiyad ay haystaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan ilaahay uga baryayaa inuu xaq dareensiyo ee Allah subhanahu wa ta'ala wadankeena noo samata bixiyo wadankeena barwaaqo iyo bashbash iyo nabadgelyo waarta inuu ilaahay noogu soo celiyo wallahi wadamada adduunka wadanka Soomaaliya wadan ka hawo macaan ama ka caafimaad badan laga soo helay balse laakiin dadkiisa xumaaday
ilaahay waxa uu masalay qoraxda meesha kasoo bixi jirtay kasoo baxdaa meesha u dhici jirtay dhac laakiin waa waxay iyaga gacmahooda ku kasbadeen dhibaatada iyo qaxarka iyo dhibka maanta haysto marka ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay social media waxna waa dumiyaa waxna waa dhisaa dadka social media ku jiro waxaan leeyahay wadanka uu istaaga idinkana sida ku samata bixi lahaa weli halka naga daawanaysan waa Jana Galafoor official oo inta nagu cusub tahay walaal subscribe ka naga iloobina like tana naga iloobina waxaan rabnaa shacbiyada musharax walba intuu shacbiyad waa istana komadigan inoo la soo wadaag waana ku soo gudbin doonaa inta tirada ay noqotay sida iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh